saraakiisha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle loogu daafuray tababar ay ku baranayaan sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen amniga doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Shabeellaha Dhexe ee dhawaan ay ka dhici doonto magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana halka uu tababarka ka furmayay goobjoog ka ahaa Gaashaale Axmed Cali Aybakar xogayaha guddiga amniga qaranka doorashooyinka federaalka Soomaaliya Gaashaale Sare Xasan Dhicisow Xasan gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ugu waxaa goobta ka hadlay Gaashaale Sare Axmed Cali Aybakar xogayaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka federaalka Soomaaliya idinka rabaa marka aad wax baranaysaan sirta waxa aad baranaysaan inaad xajisaan sirtu aad ay muhiim u tahay waa masiirka dalka doorashooyinkan maanta socda waa masiirka dalku uu leeyahay waa solutionka kaliya ee dalkan uu leeyahay inuu doorasho aado waxa la idin rabaa marka doorashada sirteeda inaad gacan adag ku qabataan aqligiina kaliya iyo maskaxdiina aad ku haysaan cidna aadan kala sheekaysanin waxa jiraya soo hawlo kala duwan aad yeelan doontaan qaar computer ay ku shaqeyn doonaan qaar raadi ay ku shaqeyn doonaan qaar meel kale istaagi doonaan oo waxba ilaalin doonaan hawlo kala duwan ayaad yeelan doontaan hal idin ka rabaa qof walba hawsha uu leeyahay sirteeda inuu gacanta midigta ku hayo sidoo kale waxa asan dhinaciisa ka hadlay Gaashaale Sare Xasan Dhicisow Xasan gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle waxa tababar laga furaa Hirshabelle Jowhar oo caasimadiya iyo beledweyne labaas meelood ay ka dhacayso doorashadu ayaa si wada jira maanta waxa laga furaa tababarkii xafiiska isku xiraha doorashooyinka Joint Group Center Operation Center oo ah isku xirihii doorashooyinka waxa loogu talagalay dadka loo furaayana waxay ka kooban yihiin 40 qofood 20 qofood oo laga furaayo beledweyne iyo 20 qofood oo laga furaayo Jowhar waxaana timinaarka siiyay oo furaayo noo yimid macallimeen 4 macallima oo hogaaminayo General Axmed Aybakar oo asagu oo na soo gaaray xaqana waxa loo diray 4 macallin oo kale asaguna kulleeyeen korneel oo kale oo booliska asaguna hogaaminayo oo tababarka sii doona dadka ka qayb galaya ka shaqay doona goobta doorashada ay ka dhacayso mudane wasiir 20 kaas qofood iyo 40 kaas qofood waxa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan doorashada ka dhacaysa Hirshabelle gaaran waxay ka shaqeeyayaan goobaha ay ka dhici doonto doorashadu iyo xafiiska laga hogaamiyayo amniga waxay isugu darayeen dadka ka shaqeeyay hoolkii oo shaqada gudaha ka shaqeeyay wixii qaladaada hor dhaca sida uga daba tagaan sida uga hor tagaan intaba la bari doono iyo xafiiska dadka ka hogaaminaya iyaguna la bari doono isgaarsiintii iyo qalabkii kombiyuutarka intaas ay isaga kooban yihiin mudane wasiir ku soo dhaw waa maasantahay shirkan adaan noo furi doona waa maasantahay ugu dambeyn waxa sanadkiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle anuguna waxaan aad idinku adkeynaa haddii Ilaahay ka raali noqdo inaad aad ugu dadaashaan oo aad ku adkaysataan sida aad sirtaas aad u xafidi lahaydeen waxaan hubaa haddii aad sirta adinku ilaalisaan amniga guudna laga shaqeeyo doorashadu waxay u dhici karaysaa sidii loogu talagalay sirkuna waa noo furan yahay Liban Abdulle Maxamed Liban Lakiban Somali Cable TV caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar